Audio Jungle. howlwadeennada meeshaan fadhiya waxaan u maleynayaa magaalada intaan meeshaan ku fadhina ka badan baa magaalada joogta laakiin inta yadan waxaan isugu nimid waa in aan bulshada u hayno mas'uuliyad gaar ah oo u adeegayso badqabka deegaankan aan ku loonahay qaas iyo guud ahaan ummadda Soomaaliyeedba mas'uuliyadda marka inta la eg bulshadan reer Jubbaland aan u hayno qaybna ka waxa guud ee Soomaaliya oo dhan loo hayo sidii loo fulin lahaa iyo dariiqa ugu wanaagsan ee lagu fulin lahaa iyo ajandayaashii hawshaas ay noogu fulin lahaayeen ka tashigeeda iyo isku xirkeeda oo kulankan ahaa saad wada dareensan tihiin agaasimayaasha guud ee wasaaraduhu waa mashiinka dhaqaajiya hadday noqon lahayd dhinaca bolisiga iyo haddii ay noqon lahayd ba dhinaca kale ee fulintaba waxa meeshu wasaaraddu laf dhabarta u ah agaasimayaasha guud weey oo abuura ajandayaashii wasaaraddu ay ku shaqeyn lahayd oo wasaarad walbaba adeega bulshada ay u hayso sidii loo fulin lahaa hawl kasta oo marka la fulinayo waxay leedahay dhinacyo badan dhinacyadaas farada badan nin walbaba hawl hayo haddii isku xir guud uusan jirin waa aragtay inuu shay culus markii la jiidayo inta wax lagu xiro qof walba hadduu keligii damco inuu qaado ama riixo ma riixi karo laakiin 1 2 3 markii la isla yiraahdo la isla riixo ya hawsha socon kartaa wasaaradda caafimaadku ma shaqeyn karto haddii wasaaradda amniga aysan shaqeynaynin tan arrimaha gudaha aysan shaqeynaynin tan biyaha aysan shaqada wax ka wadin tii waxbarashada isku xirka iyo qorsheyntii guud wasaaradda qorsheynta waxaas oo dhan marka wasaaraduhu hawlaha ay hayaan halka mid ka ah laakiin qaybahoodii iyo shaqooyinkoodii la kala qaybiyay haddii isku xir iyo wax wada qabad aan la helin wax badan ma soconayaan shirarka iyagaan marka agaasimayaashu inay isku xirmaan waxay muhiim u tahay hawlihii noo yaalay fulintoodii tusaale ahaan hadda barnaamij waa dhaweyto andaha furnay baa jiray oo wasaaradda arrimaha guduhu liidka ay lahayd oo kii SDM ka ahaa service delivery modality wasaaradihii ka wada shaqeynayay haddii isku xir xilligay hawsha bilaabayaan iyo say u bilaabayaan iyo qol walbaba hawsheeda uusan isku xir guud jirin wax fara badan ma soconayso oo macnaha hawlihii wax badan lagama qabanayo isku xirka guud ee dawladnimadan hadda ay noogu shaqeysay ee nidaamkan federalismka aan qaadanay oo dawladda dhexe tii dawlad goboleedka iyo dawladii hoosena saddexdoodaba haddaysan isku xirmanna wax fara badan lama dhaqaajin karo tusaale ahaan nabadda oo kaleeto marka hadda laga shaqeynayo barnaamijyada hadda waxaa jiray wasaaradda qorsheyntu ay diyaarinayeen oo ah guud ahaan Jubbaland oo kale loo diyaarinayo oo dhinaca horumarka oo kaleeto ah National Development Plan
وأنا كسب بالوضع district يوكلات دقمة كسماية باهية ده محيط باهية كسماية مركل لغورو هذا نوع حلوة بلاي قرنا يا state level كذا ومعناه قبل كي شبابه هو سوكلات باهيديس كدبنا كان جبلان وإنه وافقه كجبلان وإنه هذا كناشنال ديفلوبمنت بلانكي good وأنا إذن اللي دتشيا مركا للروا مركا إن wax laga qabto waxa la kombeergareyn dhamaan isteedadii wadanka oo dhan oo qorshuhu kor markuu ka imaanayo baahiyaha jira say u kala prioritize yihiin marka saas un baa lagu ogaan karaa gudaha ama magaceedu ku hadlay maanta ay noo suurtoodo inaan qabanno kulankii agaasimayaasha guud ee wada shaqaynta iyo xiriirka wasaaradaha kulankan aan ku balansanay maanta taariikhdu ay tahay 23 bisha 3aad 2022 si guul ayuu noogu qabsoomay waxaana ka soo qayb galay dhammaan agaasimayaasha guud ee wasaaradaha iyo guddiga shaqaalaha rayidka ee Jubbaland ujeedada ugu weyn isku imaatinkan waxay ahayd maadaama wasaaradda ayadoo gudanayso waajibaadkeeda shaqo ka warbixino muhiimadda iyo fikradda federalismka maadaama wasaaradda mandateku ay tahay federal nidaamka federaalka oo ah nidaam ku tusaya sida la iskugu xiro dawladaha heerarkooda kala duwan waxaan ka wada qodobka ujeedada labaad ee aan isku imaanay waxay ahayd in aan aqoon weydaarsano oo wasaarad kasta ay ka hadasho caqabadaha haysto mandatekeeda iyo meesha ay shaqada u marayaan iyo tan saddexaad oo ah in la sameeyo ama suurtagal ay tahay xiriirka agaasimayaasha guud ee wasaaradaha in aan joogteenno oo aan ka dhigno 3 bil ama 2 bil ama 1 bil ayadoo waliba qaybta dambe ee berrito aan ku ansixin doono qaabka loo shaqeyn doono tan ugu dambaysa waxa weeyaan in haddii ay noqoto in agaasimayaashu ay kulmaan oo ay sameystaan ma garanaysaa meel ay ku kulmaan oo isku weydaarsadaan hawlahooda ama shaqooyinkooda shaqo horizontally in aan ogolaansho ka helno madaxtooyada oon loo arkin kulankan agaasimayaasha siyaasadaysan laakiin ay tahay oo keliya kulan agaasimayaasha guud ay danahooda wasaaradaha technically ay iska wareysanayaan kuna ogaanayaan caqabadaha dhex yaalla wasaaradaha heer state iyo caqabadaha ka dhaxeeya wasaaradaha heer state iyo heer federal xaqiiqdii taasna anagoo waxaan ka codsanaynaa madaxtooyada khaasatan in madaxtooyada aan u aadi doonaa madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland in warqad endorsement oo nidaamkaas inaan maaragtay ka wada hadalno ajendayaasha khuseeya shaqooyinka anaga aan nimid marka afarta qodob ayaan maanta isku imaanay waxay kala wasaaradda ka warbixisay nidaamka federaalka ee Soomaaliya ay soo martay dastuuradii 1960kii 79kii 90kii kii ahad qarameedka iyo kan hadda maaragtay ku meel gaarka waxa ay ka qabaan nidaamka adeeg daadejinta Soomaaliya maanta waxay qaadatay nidaamka federaalka wadamo badan adduunka ayaana horumar ku gaaray wasaaraddu waxay ka warbixisay faa'iidada federaalku uu leeyahay inta nooc u qaybsamo iyo ma garanaysaa sidoo kaleeto Soomaaliya iyo maanta federaalka meeshay kala marayaan xaqiiqdii guul bulsheerkan noogu soo dhamaaday waxaan nagala soo qayb galay wasiir dowlaha wasaaradda oo xaqiiqdii aan u mahadcelinayo aad iyo aad warbaahintana runtii in aad looga hadlo nidaamka federaalka Soomaaliya sistemyada adduunka ka jira faa'iidada uu leeyahay nidaamkaas weey marka runtii kulankan wuxuu ahaa kulan isku xog wareysanahay sidoo kale agaasimayaasha guud oo agaasimo kasta uu ka warbixinayo wasaaraddiisa shaqada ay hayso aqoon isweydaarsi bay noqonaysaa agaasimo kastana waxa u suurtoobaysa inuu ogaado wasaaradda kaleeto waxyaalaha ay qabatay iyo mandatekeeda runtii farxad bay noo tahay inaan maanta kulankan uu noo qabsoomo waana ugu mahadcelinayaa dhammaan agaasimayaasha guud ee ka soo qayb galay aad iyo aad baa u mahadsantihiin